kadib markay soo gabagaboobeen ciyaaro isreebreeb kubadeed xisbiga waddani qabtay oo in muddo ahba 16 kooxood oo ka mid ah kooxaha isboortiska gobolka Sanaag uga soconayay mid ka mid ah garoonada gaarka loo leeyahay ee magaalada Ceerigaabo waxa habeenkii xalayto mas'uuliyiinta xisbiga waddani ee gobolka Sanaag munaasabad casho sharaf ah magaalada Ceerigaabo ugu sameeyeen sidoo kalena koobkii lagu kala guuleystay iyo abaalmarino kaleba halkaas ku guddoonsiiyeen kooxihii kaalmaha sare ee ciyaarahaas ku guuleystay waxaana munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha xisbiga waddani ee gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiin weheliyay ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradan ku kala guuleystay ciyaarahaas kuwaas oo xisbiga waddani halkaas uga mahad celiyay uguna ballan qaaday inay hiil hooba la garab taagan yihiin waxaan u mahad celinayaa xisbiga waddani iyo gudoomiyaha xisbiga waddani ee gobolka Sanaag oo runtii munaasabadan qiimaha badan barbilowgeedii ilaa bardhamaadkeedii ilaa iyo shaqadu intay socotay markasta garab taagnaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ka dhalinyaro ahaan ka sports ahaan iyo ka shacab reer Sanaag ahaan garoonka weyn ee magaalada Ceerigaabo waxa ka jira weyn ogna koob lagu qabtay iska daay waa meel biyo mareena bas xisbiga waddani waxaanu ka sugaynaa anagu maanta uga fadhino bari aad xilka ku fariisto waxaanu doonaynaa in garoonka ka shaqeeya aad halkan waxaan uga mahadnaqayaa xisbiga waddani oo koobkii ugu horeeyay ee dhalinyarada isugu timid oo 16 kooxood noo qabtay labadii kooxood ee caaw isku soo baxay ay kala qaaday kooxdii qaaday ee horseed iyo kooxdii laga qaaday aflix labadaba uu hambalyeeyo waxaad ogaataan dhalinyaro in xisbiga waddani mar walba la shaqeeyo dhalinyarada uu garab taagan yahay dhalinyarada mid ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga waddani ee degmooyinka Sanaag bari oo munaasabadan goobjoog ka ahaa ayaa isagana hadallo uu halkaas ka yiri waxa ka mid ahaa waxaanu ka nimid degmada Ceelbuh ee bariga Sanaag insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii uu xisbigu talada qabto in wasaaradda laga raysto oo aanay noqon sidii hore ee kulmiye uu noqday codkeenu waa waddani waxaynu isku ognahayna waa waddani gabagabadiina waxaa munaasabadaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga waddani ee gobolka Sanaag Daaday Jaamac Xasan runtii caawa horta marka ugu horeysa waxaan aad u hambalyeynaya dhalinyarada ku ciyaareysay magaca dalada aflix waxay ahaayeen dhalinyaradii ugu akhlaaqda fiicnayd ee ku ciyaarta halka timaada koobka waa la kala qaadaa laakiin akhlaaqiyadka aad soo bandhigteen iyo ciyaarta soo bandhigteen waa wax aad iyo aad noo farxad galiyay hadaan nahay madaxda xisbiga ee gobolka in abaalmarina waan idinku siin doonaa insha Allah sidoo kale dhalinyaradii qaaday koobka si fiican baa u soo dadaasheen 16 kooxood baa ka soo guuleysateen waxa weeye idin waan idin amaanaynaa xisbiga waddani waxa ka ballana inuu laba garoon oo casri ah ka sameeyo in magaalada waxa caawa la sheegay in xisbiga kulmiye uu doonayo inuu koob qabto inagoo mucaaridaan ila eryanaya koob baynu qabanay koob bay qabtay way noo farxad kama xumin waxaan leenahay hay nagu daydeen oo intii waa xukum oo xisbi xaakimka intii iyaga lagu dayla haday nagu daydaan waa wax wanaagsan inaga aan laga dayanaya waxa wanaagsan waxaan kaloo idin sheegayaa dhalinyarada waxaan idinku boorinayaa dhammaantiin inaan dib u soconaanin horumarkeena gobolka Sanaag wallahi farteenaas maanta ku jira ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga waddani ee gobolka Sanaag labada kooxood ee isugu soo haray ciyaartan oo kala ahaa kooxda horseed oo guusha koobkan raacday iyo kooxda aflax oo laga guuleystayba wuxuu halkaasi ku kala guddoonsiiyay koobkii iyo abaalmarino kale oo kala duwan Siciid Muuse Faarax Saab TV Ceerigaabo.